daawadayaal humaag waa barnaamij maalinle ah oo aanu idinkugu soo bandhigno dhacdooyinka siyaasadda sarbeebaha iyo siraha dahsoon ee dunida ka dhacaya waxaad 24 saac hal mar ka daawataan shaashadan caalamiga ah ee 6 News Somali soo saaraha iyo socodsiyaha barnaamijka waa anigoo ah Cabdixafiid Nuur cid gaar ah uma adeegno oo Soomaali weyn ayaa inoo siman intaan qabiil ama qoys u adeegi lahayna qarankeena oo aan qowlsan ka sheegno ayaa inagala qumanaatay xarunteenu waa xamar xigaalkeenuna waa adinka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وناكسن داوديال halkani waa 6 News Somali TV kusoo dhawaada barnaamijkeena humaag oo aanu idinku soo gudbino dhacdooyinka siyaasadda sarbeebaha iyo siraha dahsoon ee dunida ka dhacaya qodobada aan maanta idin heynana waxa kamid ah wadooyinka caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa maanta haawanaya kadib markii sabab la xiriira cudurka coronavirus ay ciidamada ilaalada wadooyinka u kala ceyriyeen gawaaridii iyo dadweynihii isticmaalayay wadooyinka faahfaahin dheeraad ayaan idinkaga haynaa sidoo kale waxaan idin hayaa Sacuudiga waxa uu 5 sano kadib ka dhaqan galiyay dalka Yemen xabad joojin ilaa iyo xilliga ay socon doonto iyo rajada laga qabo in ay xuutiyiintu aqbalaan xabad joojinta Sacuudiga ayaan idinku faahfaahin doonaa barnaamijka hadduu ee baraale ka noqdo isla markaana aad ku daawan doontaan sidoo kale waxaan idin hayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxa uu sheegay isla markaana ugu baaqay xukuumadda in xoog loo adeegsado dadka jooga goobaha la isugu yimaado ee caasimada Soomaaliland ee Hargeysa waxaan idin soo gudbin doonaa gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya sidoo kale waxa aan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa caasimada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya wadooyinka waaweyn ee caasimadaasi ayaa haawanaya oo wax dad iyo gawaari isticmaalaya ayaan jirin faahfaahin dheeraad oo arrimahaasi ku saabsan ayaa ku daawan doontaan barnaamijkeena humaag ee maanta sidoo kale waxa aan idin hayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde maanta waxa lagu aasayaa London 5 qofood oo kaliya ayaa ka qayb galaya aaska ra'iisul wasaaraha qodobadaas iyo kuwa kale ayaad humaag ku daawan doontaan halkani waa 6 News aniguna waxaan ahay Cabdixafiid Nuur waxay daawadayaal hadii aan ku bilaawno gudaha magaalada Muqdisho caasimada Muqdisho maanta waxa haawanaya wadooyinka waaweyn ee ay isticmaalayeen gawaarida iyo dadweynaha wadada Maka al-Mukarrama oo ah halbowlaha magaalada Muqdisho ayaa haawanaysa oo wax gaariya ayaan isticmaalaynin waxaad ku arkaysaa hareeraha wadooyinka dad dhif ah oo lugaynaya kuwaasi oo doonaya inay guryahooda la ku gaaraan inta aanay qorraxdu ku dhicin sidoo kale maanta magaalada Muqdisho masaajidada qaar lagu ma dukan salaadii jimcaha oo dadka waa laga kala ceyrinayay masaajid ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Marwaazi oo ku yaala degmada Xamarweyne waxa loo galay jamaacada masaajidka ku jirtay halkaasina banaanbax ay ka dhigeen cabaar socday balse hadda xaaladdu waa ay degan tahay wadooyinkuna waa ay haawanayaan ciidamada ammaanka ayaa xiray isgoosada soo gala magaalada Muqdisho ayagoo dadka ku amraya inay dib u laabtaan markaana hadii aan aadno magaalada London ee xarunta dalka UK maanta waxa lagu aasayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde Allah u naxariistay oo dhawaan magaaladaasi ugu geeriyooday cudurka dunida ku sii faafaya ee COVID-19 oo saameeyay Soomaali badan oo qurbaha ku nool aaska ra'iisul wasaare Nuur Cadde Allah u naxariistay waxa ka qayb galaya 5 qofood oo kaliya oo dawladda UK ay u qorshaysay inay ka qayb galaan maadaama isu soo baxa dadweynaha iyo ismaatinka dadka aan la ogolayn oo cudurkan uu ku faafi karo arrimahaasi ra'iisul wasaare Nuur Cadde ayaa dhawaan ku geeriyooday magaalada London kadib markii uu asiibay cudurkan dunida ku sii faafaya ee coronavirus Soomaali badan ayaa ugu geeriyootay dibadda dalka qurbaha Soomaalida ku nool dad badan oo kamid ah ayaa geeriyooday maanta ugu dambeysay mid kamid ah dhaqameedyada Soomaalida caanka ka ah ayaa u geeriyooday cudurkan COVID-19 bal markaana hadii aan aadno Soomaaliland magaalada Hargeysa maanta waxa si jiraad ku qabtay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxa uu ku amray xukuumadda ka arrimisa maamulka Soomaaliland in ay
xoog u adeegsadaan dadka isticmaalaya wadooyinka iyo sidoo kale kuwa isugu soo baxaya maqaaxiyadaha iyo marfashyada jaadka lagu cuno iyo sidoo kale meelaha dadweynuhu isugu yimaadaan sida goobaha ciyaaraha iyo xeebaha iyo sidoo kale barxadaha ay caruurtu banooniga ku dheelaan waxa uu amray sidoo kale odayaasha dhaqanka intii ay la hadli lahaayeen warbaahinada iyaga oo ka hadlaya arrimaha Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeysay ay odayaasha dhaqanka ka hadlayeen inay ku bedelaan wacyigelinta cudurkan coronavirus waxa uu yiri Baashe Maxamed Faarax mar oo arrimahaasi ka hadlayay hargeysa haddaad martana sidii baa la soo dul saaran yahay haddaynan dee qof walba naftiisa ilaalinna hadal wax la yiri ma ilaalin karayo intaana waa laga hadlayay guddiyaha loo sameeyey waxa laga hadlayay waxa weeye kala fogaada haysa salaamina Soomaalidina qof walba gacantu soo taagaya dadna dawad xishoonaysa nin weyn oo oday oo gacan ku soo taagay aad iska dhibatid kale waad salaamaysaa waxa weeye mid labaad ee aynaan dilayno ku caalheynay waxa weeye hadii la qof baa xanuunsanaya waa lagu yaacaya imka odayaasha Ingiriiska jooga waxa laayay waxa weeye marka la yaa hebel baa xanuunsanaya qaraabadii oo dhan baa guriga ugu tagaysa de wixii u tagayna waa qaadayaan meeshuu taabtay taabanayaan waxaan xukuumadana u soo jeedinayna waxa weeye khasab inuu yimaado oo dadkan haday masjiddan ay ninka qayilaya laantiis ha qaato qolkiisa ha isku xiro laakiin haddii de masjidada sidii u furan yihiin oo suuqu sidii loo tuban yahay waxay tagaysaa in awood lagu isticmaalo oo waad aragteen dhulka kale oo ul baa lagu masaajid ul lagaga soo saaraya dadkii waad aragteen saxaafaduna aad bay uga qayb qaadatay iminkana waxa ka sii qayb qaateen odayaashan iyo dadkan ay wareysanayaan TV-yaduna ha ku bedeleen in waanada in laga waaniyo dadka miyiga ha loo baxo marka iyada waxaan oran lahaa guddida inoo aynu samaysanay talooyinkooda hal raaco cidna dhaafi maayo marka waanada iyo talada bal markaan hadii aan aadno dalka Yemen isbahaysiga uu hogaaminayo dalka Sacuudi Carabiya ay taageeraan wadamada reer galbeedka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin muddo soconaysa Sacuudi Carabiya iyo xulafadiisa oo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Mareykanka ayaa muddo waxa ay dagaal kula jireen ururka fallaagada ee Xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen Xuutiyiinta iyaguna waxa ay garab ka helaan dalka Iiraan oo ay cadow yihiin dalka Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka waxay ku dhawaaqeen Sacuudiyaanku in ay xabad joojin ku dhawaaqayaan si looga qayb qaato in cudurka coronavirus la xakameeyo balse dhinaca kale waxaan la ogeyn in ay dhaqan gali doonaan Xuutiyiintu xabad joojinta oo ku dhawaaqay Sacuudi Carabiya dhankooduna ay sheegi doonaan in ay ogol yihiin xabad joojintaas oo ay qayb ka qaadan doonaan ugu dambeyntiina magaalada Riyadh ee caasimada dalka Sacuudi Carabiya wadooyinka waaweyn ee caasimada Riyadh ee wadanka Sacuudi Carabiya wadooyinka waaweyn ayaa haawanaya iyadoona la xiray goobihii dadweynuhu isugu imaanayeen gawaarida ayaa loo diiday inay wadooyinka isticmaalaan waxa horey loo xiray magaalooyinka Makka iyo Madiina oo dhulka barakaysan ee xajka iyo ay ku yaalaan hore ayaa loo kansalay xajka in la aado umradina wayba ka sii horeysay xaaladda corona ee dunida ayaa kacsan iyadoo laga cabsi qabo in uu ku faafo guud ahaan dunida goobo ku faafay iyadoo laga cabsi qabo in uu meelo badan oo hor la gaaro isla markaana uu dhimashadii ugu badnayd ee dunida geysto walwal ayaa la soo kordhay adduunyada iyagoo ka cabsi qaba wadamada quwadaha waaweyn ayaa la tacaalaya isla markaana la daalaa-dhacaya bal sidii ay mar-uun uga guuleysan lahaayeen cudurkan ilaa iyo hadda wax daawo ah looma helin wadamada faqiirka ah ee sida Afrikana waxa la leeyahay dhaqaalahoodu ever ayuu 0.5 kasii hoos mari doona sanadkan xaaladda cudurka coronavirus iyo la dagaalankiisa awis guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena humaago aanu ku soo bandhigno dhacdooyinka siyaasadda sarbeebaha iyo siraha dahsoon ee dunida Cabdixafiid Nuur ayaa nahay soo saaraha iyo socodsiyaha barnaamijka tan iyo barnaamijkan kiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa nabad ahaada daawadayaal humaag waa barnaamij maalinle ah oo aanu idinkugu soo bandhigno dhacdooyinka siyaasadda sarbeebaha
iyo siraha dahsoon ee dunida ka dhacaya. waxaad 24 saacba hal mar ka daawataan shaashadan caalamiga ah ee 6 News Somali. soo saaraha iyo socodsiyaha barnaamijka waa anigoo ah Cabdixafiid Nuur. cid gaar ah uma adeegno oo Soomaali weyn ayaa inoo siman. intaan qabiil ama qoys u adeegi lahayna qarankeena oo aan qowlsan ka sheegno ayaa inagala qumanaatay. xarunteenu waa xamar, xigaalkeenuna waa adinka.